السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan nagala socotaan waa Mashiish Media. fadlan subscribe adigu wax ku dhibi mayso, annagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin. maantana qisadeena waxaynu ku soo qaadan doonaa qisooyinka laga wariyay mid ka mid ah Juxa ayaa maalin waxa uu imaaday gurigiisa asoo damcay in uu baxo ayaa waxa uu la kulmay wiilkiisa oo guriga joogo aanan bixaynin. Juxa ayaa wiilkii weydiiyay, wiilkaygiiyo maxaad maanta u bixi weysay ood banaanka u aadi weysay? maanta waa maalin fiican, waana maalin fasax ah. wiilkii ayaa ku jawaabay, aabba aniga banaanka ma aadayo, saaxiibaday ayaa is soo dirirnay. odaygii aabbihiina waxa uu yidhaahday, wiilkaygiiyo saaxiibada way isdiriraan, waxaasna dhib ma leh, wayna ay heshiiyaan. wiilkiina waxa uu ku yidhaahday, maya aabbo, way i quursadaan, way i yasaan, dharkayga ayay wax ka sheegaan, ciyaartayda wax ayay ka sheegaan. aabbihiina waxa uu yidhaahday, wiilkaygiiyo waxaas dhib ma lahan, dadka way iscaayaan, way kaftamaan, waana laga gudbaa waxaas. wiilkii laakiin waxa uu ku adkaystay in uusan bixi doonin. Juxa ayaa wiilkii waxa uu ku yidhaahday, mar haddii aadan bixaynin, magaaladan u socda ma i raacaysaa? darsin cashar ayaan ku soo barayaa. wiilkiina waa uu ka yeelay in uu aabbihiis raaco. sidaas ayay Juxa iyo wiilkiisii ku ambabaxeen, magaaladay ku aadeen. markay guri ka sii baxayeen ayuu wiilkii yaraa wuxuu arkay saaxiibadiis u wacay, waxayna ku yidhaahdeen kaalay nala ciyaar. isagana waxa uu yidhaahday, idinla ciyaari maayo, dib dambana u wada ciyaari mayno. markii ay sidaas ku ambabaxeen Juxa iyo wiilkiisii ayay waxay sii wadeen dameerkoodii. Juxa waxa uu fuulay dameerkii ayuu raacay, wiilkiina waa uu ka rab socday. waxaana ka hor imaaday 2 nin. waxa ay yidhaahdeen, bal odaygan fiiri, oday naxaya maahan oo wax naxariisa ma lahan. asaga waxa uu saaran yahay dameerkii, wiilkiina waa uu lugeynayaa. muu asaga dameerka oo ka dego wiilka saaro oo lugeeyo. wiilkii ayuu u jeestay Juxa oo wuxuu ku yidhaahday, wiilkaygiiyow ma maqlaysaa waxa ay leeyihiin? wiilkiina waxa uu yidhaahday, haa waan maqlayaa. markaas ayuu yidhaahday, ma u soo jawaabaysaa? wiilkiina waxa uu yidhaahday, maya u soo jawaabi maayo, warkooda danka melihi, adigu waxaa tahay aabba fiican, naxariisna waa leedahay. Juxa kadib wuxuu ka degay dameerkii ayuu ka degay, waxa uuna saaray wiilkii. markay cabaar sii socdeen ayaa waxaa ka hor imaaday 2 dumar ah. waxa ay ku yidhaahdeen, bal fiiri wiilkan, aabbihiis ayaa lugeynayo, asagana dameerkii ayuu saaran yahay. wiil baariya maahan oo u turi maayo aabbihiis. Juxa ayaa wiilkii weydiiyey, wiilkaygiiyo islaamaha waxay dhahayaan miyaad maqlaysaa? wuxuu ku yidhaahday wiilkii, haa. wuxuu yidhi, waayahay adigu ma caasi ayaa tahay? maya caasi mihii ayuu dhaha wiilkii, oo dameerka adiga ayaa i saaray. waxa uu yidhahday, waayahay ma u soo jawaabaysaa? wiilkiina waxa uu yidhaahday, maya aabbo oo dan kama lihi. markaas kadib Juxa iyo wiilkiisii waxay wada fuuleen dameerkii, waxayna u socdeen suuqii. intay sii socdeen ayaa dad ka hor imaaday. waxa ay yidhaahdeen, bal fiirsha 2 qof, waa wiili aabbihiis, waa cadow, naxariis ma lahan. dameerka masaakiinka ah ayay wada fuuleen, may ka degaan ay u naxariistaan dameerkii. Juxa ayaa wiilkiisii weydiiyey, aabbo ma maqlaysaa waxa ayna leeyihiin? wiilkiina waxa uu yidhaahday, haa aabbo. Juxa yidhaahday, markuu yidhaahday, wiilkaygiiyow ma runtood baa? wiilkiina waxa uu yidhaahday, maya aabbo runtood maahan, annagu waa naxariis badan nahay, ayakaa si kastaba inoo diiday. kadibna Juxa iyo wiilkiisii waxa ay ka degeen dameerkii, oo dameerkii ayay labadoodiiba garab socdeen. intii ay sii socdeen ayaa waxaa ka hor imaaday dad. waxa ay yidhaahdeen, bal fiirsha 2 qof, dameer ayay soo gateen, mana ay raacayaan, oo maxay u soo gadanayeen? alloo nimanku waa dameero soo gatay. Juxa ayaa wiilkii yidhaahday, wiilkayga waxayna leeyihiin miyaad maqlaysaa? wiilkiina waxa uu yidhi, haa waan maqlayaa. waxa uu yidhaahday, ma runtood baa? annagu ma dameero ayaan nahay? wiilkiina waxa uu yidhaahday, maya aabba, annaga dameero ma nihin, ee dad wanaagsan ayaan nahay. waxuu yidhahday, inta u tagtid ma u soo sheegaysaa inaanan dameero ahayn? wiilkiina waxa uu yidhahday, maya aabbo, wax dan ah kama lihi. kadib Juxo dameerkii intuu lugihi ka xiray oo ul u geliyey ayay asigii wiilkii qaadeen. suuqii ayay la galeen ayagoo sidii ku wado. dadkii ayaa yidhaahday,
bal fiiriya nimankan, ma ayakaa dameerka soo iibsaday mise dameerka ayaa soo iibsaday? Qaar waxay dheheen maya, ayakaa la soo iibsaday in lagu xamaasho. Kadib markii halkaasi warkii marayaa ayaa Juxa wuxuu sameeyey, dameerkii waxa uu ku tuuray meel biyo ah. Kadib dadkii ayaa kusoo shamuumay oo waxay yidhaahdeen, dameerka meesha maxaad ugu tuurtay? Qofba si ayuu ula hadlayey, asagana wax juuq ah uma uusan dhihin. Nin ka mid raggii ayaa yidhaahday, ninka waa Juxa, dan unbuu leeyahay, ee horta dameerka aan soo badbaadino. Juxa ayaa u jawaabay oo waxa uu yidhaahday, haddaad aqli leedihiin, dameerka dhimanaya ayaa soo badbaadin laheedeen, ee maxaa u tuurtay iyo maxaa u dhacay ima aadan dhihi laheen. Kadib markay suuqa ka soo dhammaadeen ayaa waxa uu yidhaahday Juxa wiilkiisii ku yidhaahday, wiilkaygiioo meeshan maxaa kaaga soo baxay? Wiilkiina waxa uu yidhaahday, cashir fiican ayaan aabba ka bartay oo waxaan ogaaday dadku meelba inaysan kuu daynin. haddaad labis fiican wadatid wax unbay kaa sheegayaan, haddaadan labis wadan wax ayay kaa sheegayaan. caadadooda waxay noqotay in ay wax ay sheegaan. Juxa marka waxau yidhaahday, saaxiibada dadkaas ayay la mid yihiin, sidaas kula noolow. haddii aad dhahdid kii wax iga sheegay waan ka tegayaa, ogow qof aad la heshiin doontid ma lahan. wiilkiisiina maalinkiis kadib saaxiibadiis waa ula noolaa, si wanaagsan ayuu ula ciyaari jiray, warkoodana dhag umuusan dhigi jirin. maantana qisadeenna halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waadna ku mahadsan tahay sida qiimaha leh aad noola socotid. وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.